camalkaaga la dhaadhacaysa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي جنو كورم عليه الصلاة والسلام أيه تري يا رسول الله مالك سرجوجا يا وات كيسان كريا بيكوتري من يقوى أيه كريا بيكوتري كنتم كنا صندوق مرقابو النبي يقول يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشة إلهي كسو أضاعي والله فوديدين صلاة فرض كأنت تكتان لك بابك قيام الله قد يجيبودي انتين تكون صلاة المغرب 5 دقيقة 12 دقيقة 13 دقيقة مؤمن كإيمان كله إيه أدوية انتو جوجا كصايقاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحصير دكتي إيه آخرة كسي حساب تمي إيه تلابضو قاذا يبا إيه آخرة ديس هذا اللي كنتو كسو بحين قفك مؤمن كا آخرة دو إيه دقاليه سينتو ننبحين آخرة دو إيه ماشو مريو آخرة دو إيه ماشا أنو السعودة ما مال آخرة ذي يقدر وعي سبا مسوا مال آخرة ذي وحيد رئيسه هذا الجاي الصباح حيا ما هذا الآخرة ذي يقدر وعي يبا ونبي كي سنة يهدو طوله مسوا هذا الآخرة ذي دعكوبة بعد أيو دقالهم بحنا أيو ما دقال آخرة ذي كبا يبا ونآخرة كوبة بعد يبا ومال في عمبو يقول دعيا مس آخرة ذي بو دقالها سيجا بحنا يا وكقب صداين تقوري قرطه مؤمن كو حساب تميا مؤمن كأدوية دوشيدا إلهي كسو أضيعي كسو عابدي صلاة دايرة فرادك انت أتكنيي إن لعك بابنك قيام الله قد قيا تدكي إلهي يقاني دراري يا هبين آخرة هورتا الله يك آخرته قفك هذا هرتا الله محي كور آخرته كوكو سامينس نولا شاد آخرته محي كوكو ريبة سامة تقانا واحد دون تكوه اللي كريم يسد واحد دون تأيجي كريم يسد واحد دون تعوني كريم يسد صدا دون تقول نولان كريم يسد وايو دارينك آخرته قلبك هدو قلو دارينك آسا حمان تودنك هاجوجيني ونا قدنا كودرايا dareenkaas qofka qabanaya qofka inuu macsiyada waxa ka qabanaya waa dareenkaas waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nabiyadu dadka ugu yeedhayeen nabi kasto adduunka la keenay umada ilaahay xaqiisu ugu yeedhay aakhiradan xaqeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raali noqona waa iimaan iyo amal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysan waa iimaan iyo amal saalix maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam magaalada Madiina soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhisaynaa markaa buu nabigu wallahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yidhi saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi inta aqalka dhisaysaan malagii suurta afuufayay waa Israafiil alayhi salaam ayaa buuqi qaatay buu rasuulku yiri foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyay markaasuu sida uu haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalka markay maqleen waxayba moodeen inay saacadu bari ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaas ay yiraahdeen yaa rasuulallah maxaan idhaanaa noo sheeg markaa buu nabigu waxa tiraadaan xasbunallahu wa ni'mal wakiil hada wallahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadii naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta ma sha Allah dadka muslimiinta dareenkaas maanta waa nagu yar yahay illa man rahima rabbi mooyaane لأن قلبك وصاموا بقلبك إن القلوب لا تزدى كما يزدى الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا
waxaanaad eegaysa qalbigu saamaynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbigu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbigu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbigu saamaynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatul qalbi bay culimmadu yidhahdaan waxaad eegto qalbigu galaa waxaad ku hadasho qalbigu galaa waxaad ka fikirto qalbigu galaa waxaad dhegaysato qalbigu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culimmadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheegsheego la xasuusto laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajidooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayey sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiyey buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada innamaa buniyat almasaajidu lima buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weynaynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumayna kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari iraac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo way soo baxayeen haddana maalin kaluu yidhi ina mari iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bnu cumar suuqa waad nagaysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgaysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibnu cumar baa ku yidhi waree kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baan u ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolkaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiye waa maxay salaanteennu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxau ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa boqol qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan
oo barakadiina ay helaan. inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahay oo lagu noolaan lagama dhaadhacsana maanta. salaantaasaa lagu dhargayaa. cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay, maciishadii baa igu adkaatay. markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi, malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi. markaasuu yidhi mayma seexdo. lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi, malaha qof kaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi, haddana hor martaa. markaasuu yidhi may, haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin? markaasuu yidhi haa. markaa birta arsaaqada kaa xidhay waa taas, labada waalid ducada ku dar buu arsaaqadu ay kuu furmiyeen. meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa? ya may. salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen, waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen, istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen, salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen. salaatu duxaada cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya. diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto, bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiraan ku dhargno ku libaanno. marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad, yaanan dayicine adduunyada diinaha ka qaadanno. diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan. yaqiin, iimaanku waa maxay? ilaahay rumee. yaqiintuna waa maxay? aakhiradu ha kula weynaato. wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi, oo risiqeennaa xalaal noqon, oo mujtamac oo dhan baa isbedeli. waayo laanna mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya. sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan, nin baa nin dhul ka iibiyey. dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa, uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday, jara min adahab uu qaatay, uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee, malaha waadi lowsaneeda iga qaada buu ka yidhi. markaasuu yidhi may, anu kuma ogeyn, adaa ilaahay kaa siiyey, adaa iskale iska qaada buu ka yidhi. war waxaan adigaa le iga qaado. innaga zamankeenna waa maxay? war waxaan anigaa le isii weeyaan. teen waxaan ku dagaalamayno, dhulkan anigaa le, gurigan anigaa lahaa, meheraddan anigaa lahaa, waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa. iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen, war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo. may, ma dhici karto. may, adaa iska le, adaa ilaahay ku siiye iska qaado. may, dhulkan adaa iga iibiyey, malaha waad halmaamsantahe, adigaa iskale iga qaado, waxaan malihi anigu yahay, lacagta intan leegna anigu kuma siine. may, labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen. maxay isku haystaan? kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalea le ha iga qaato, kanna wuxuu leeyahay war malihiye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato. qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa. qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena. qaar baa iska fiican way jiraan, laakiin kuwada waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta, xoolahan dawladda iskale iska keena, halka ka baxay ninkuna mu odhan. wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil, adiguna gabadh, labadaa isku guuriya, labadaana xoolaha siiya buu yidhi. bal fiirso, islaaxu waa cajiib. halkaa hadday islaaxdo waa cajiib, halkaa hadday xumaato. laakiin dhegayso qisad kale. 3 nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam. siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo, dhaymanku. markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman, waa dahab, waa jawharad. markaasay yidhahdeen noo qaad. markaasuu yidhi nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi. markaasay de anna kaa qaadanayna, de haddaad qaadataan i raaci maysana waad iga hadheen ogaada buu yidhi. diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi. waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam.
saddexdii nin way ka hadheen baa lidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin gallo waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah cuثmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel laydhaa oo cuثmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciintaee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyaday la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha inte ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay oo uu yimiday uu salaamay wuxuu dhi amiirkii mu'miniinta cuثmaan baan salaankaaga sidaa waan kaa qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanaha ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi
markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu hor iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buuhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tagin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socda buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebiga ii kaa soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tego waxaad ku tidhaahdaa waxau nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi de maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkaya ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegayse buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacagu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhana way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraac cilmi albayci washaraac culummada kaalayo weydii cumar bnu khadaab suuqa madiina intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqinaa haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin masjiidka nebiga intuu tegey cilma albayci washaraac culummada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo China iyo Thailand baa laga wada duulay habrihii baa socdo kula China u socotaa xageen u soconaa war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin
adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadanno oo diinteenna ha baranno oo diinteenna ha ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zamanuu nebi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharkuu batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhahda maanta sunnaha nebiga ku far adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalkaa diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahada taama guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonnaa yaa dhegaysto wanaagsan waxa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyaddii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahaddiisu ummadda wax ku taray ismaa binu cafaan cumar buu nebigu u diray maka markii sulx alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu yidhi aniga may buu yidhi cusmaan baa ku munaasiba buu yidhi cusmaan baa ku munaasiba cusmaan buu nebigu yidhi dal waa runtii cusmaan adigu tag khaalid bin waliid geesinimadii raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilahina dembi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaad raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka innakuna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waanan inagu dheereeyey in sha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marayna ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culummadaana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysaan u marti kumeeye waan deganahay ya
دقنها ما شاء الله عيال كريرك ودن باجوغا مرك الله أنا نجا وضر على نقض كل جين هذا وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل